iyada oo uu saaran yahay culays xooggan oo dhinaca diblomaasiyadda ah dowladda Masar kaas oo ku aadan sidii loo hakin lahaa habsami u socodka biyo-xireenka ay howlihiisa wado dowladda Itoobiya kaas oo ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku sheegeen inuu yahay mid horumarin ah isla markaasna aan dhibaato ku hayn dalka Masar ayaa dowladda Masar waxa ay wadaa galaangal diblomaasiyadeed oo ku aadan sidii ay ugu qancin lahayd sidii ay ula soo safan lahaayeen isla markaasna ay u samayn lahaayeen cadaadis xooggan oo ka dhana dowladda Itoobiya sidii ay u hakin lahayd buuxinta labaad ee biyo-xireenka Itoobiya ay damacsan tahay in ay u isticmaasho qaab koronto dowladaha ay sida aadka xiriirka ay ula leedahay dowladda Alqaahira waxaa ka mid ah Israel oo ay haatan mar kale maciin biday Masar ayaa doonaysa in Israel ay ku qanciso saaxiibadeeda reer galbeedka sidii ay ugu cadaadin lahaayeen Itoobiya in ay samayso biyo-xireen taas oo ay Masar ka cabsi qabto in uu isdhimo boqolkiiba 85 biyaha webiga Nile ee soo gaara dalka Masar wasiiro iyo diblomaasiyiin ka socda dowladda Masar ayaa madaxweynaha dalka Masar al-Sisi waxa uu u diray Israel si ay ugu soo qancin lahaayeen heshiisyo horey ay ula saxiixeen isla mar ahaantaasna ula galeen dowladda Masar iyo Israel sidii ay u fulin lahayd heshiisyadaas Israel ayaa cabsi xooggan ka qabtay in haddii Masar aan lagu taakuleen galhowleedka biyaha webiga Nile uu imaan doono dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah Tel Aviv taasi oo la fahamsan yahay in ay ka mid tahay in Masar ay albaabada u furto Gaza halkaasi oo ay ka geli karaan saanadaha iyo sahayda ay isticmaalaan kooxaha muqaawimada ee reer Falastiin madaxweynaha Masar Cabdifataax al-Sisi ayaa hadal uu u jeediyay dadka reer Masar isla mar ahaantaasna uu u qabtay khudbada aad u ballaaran taasi oo dhinacyo badan taabanaysay dadka reer Masarna uu kula hadlayay ayaa waxa uu ku sheegay in Masar ay ku dhaqaaqi doonto tallaabooyin u qarsoon isla markaasna aysan joojin Addis Ababa in ay dhagaha ka furaysato dalabaadka uga imanaya dhinacaas iyo Masar waxa uu mar kale ku celiyay Sisi inay Masar xaq u leedahay inay hesho saamigeeda aysan jirin cid hor istaagi karta Masar ayaa dhinaca kale niyad-jab kaga yimid dalka Ruushka oo horey ay heshiis ula ahayd isla mar ahaantaasna heshiis ogala ahayd arrinta ku aadan biyo-xireenka dalka Itoobiya kadib markii uu diiday Ruushka dalabaadkii uga imaanayay Masar ee ka dhanka ahaa Itoobiya Ruushka ayaa la ogsoon yahay inuu yahay cududda ay Itoobiya ku xisaabtamayso haatan si ay uga caawimaan isla mar ahaantaasna gacan uga siiyaan ilaalinta iyo dhowrista biyo-xireenka dalka Itoobiya ay doonayaan inay halkaasi ka sameeyaan biyo-xireenka ugu weyn ee qaaradda Afrika oo ay u isticmaalaan hab koronto dhalin